intii cabdiraxmaan arsalaan iyo xaafeewan waan dhaafi waxaynu dowladnimada helay 26 waynu ka hor helay Soomaaliya sida taariikhda ula socota dowlad ma yahay iyo markii inagu aan dowladnimada helay xididka shaqigeysi waxay matilaysay shanta qaybood ee Soomaalidu ka kala dhigan tahay qoladii ugu horreysay xukunka qabatay waxay noqdeen dad aan nasab ahayn waxaan u leeyahay dad aan nasab ahayn innagoo ugu horreynay dowladnimada innagoo muxuu ahaa istiqlaalkeennii helay oo UN-ka laynaga aqoonsanay oo muxuu ahaa 55 dowladood iyo waxaas maxaynu aqoonsaneen ayaynu muxuu ahaa ayay iyaguna heleen iyagoo la soo dedejiyo la yidhi kowdii Julaay inuu isu nimaado waxayna ugu ahayn waxa ku daliila waxay yidhaahdeen caasimadu annaga ha ahaado madaxweynuhu annaga ha ahaado prime ministerku annaga ha ahaado daakhiligu annaga ha ahaado finance annaga ha ahaado muxuu ahaa labada kumandaha booliiska iyo militariga annaga ha ahaade yacni wax saa wax u qaybiya oo hadda Soomaali oo shalana inaynu isu keenayn doonayno wax saa wax u qaybiya oon kuwa ahayn meel lagu arki maayo kolkii aynu iska dulqaadanay ee aynu arrinteennii muxuu ahaa iska qabsannay markii ina ciyaar prime ministerka helay waa nin Somaliland markuu prime ministerka helay inqilaab ay dhigeen kolkaa waxaa ka muuqata inayna gobonno meel ka soo gelin sida runta waayo wax xeerinayada u malayn maayo waxaana ku dhashay kuwii baa inaga oo maanta dowladda oo layna ammaanayo oo doorashooyinkii galay iyaguna ay haystaan ayay haddana leeyihiin Soomaaliya wax ugu ogol العقل halkaa joogay waxaa imika inoo hadhay in UN oo og inaynu inagu dowladnimada ka hor helay innagiina wax inoo diidan inay magaaladan Hargeysa ku joogaan magaca Soomaaliya taasay ugu ceeb waxaan maxamed kaarin naga joogo xukuumaddii sare waxaan odhan lahaa naga baxaalaya waynu isku filannahay dhaqaalihii ay u tuurtuurayeen sadaqadii ay meelaha u tuurtuurayeen madaxdeena waynu ka soo gudubnay innagaa arrimaheena qabsan doona innagaa dhaqaalaheena samaysan doona dalku waynu ugu filan yahay meel wanaagsan baynu maraynaa waynu sii kordhin karnaa waynu wax walba waynu qabsan karnaa naga baha ha la yidhaahdo haddaynan magaca Soomaaliya ku joogin intaasaan ku dhaafaya waxaynu isugu jiraan dad saboola dad xaasha wax ka qaba dad muxuu ahaa xanuunsanaya sidii aynu isbitaalladeenu u hagaagsan lahayd ee aynu u dhisan lahayd ayaynu taladeeda gelaynaa haddii alla yidhaah waanaynu qabsan karraa kolkaa waxaynu samayn waxaynaynu isku kullaysiini kharashadaynu dhimi waxa weeyaan wixii dadkeenu u baahan yahay waa in laga warhayaa saboolku iyo la helayaa meel wax ka beerta la helayaa waa inaynu ku fekeraa sidaynu dadkeenu wax u qaban anugu anigii banaasi mar waxoogaa hayay noo
وهذا إلها حقيقة ويكمليني ولي بقول كلام وصدق أفر ستيج أيه ودني تذكر الصبر كل ولا كرم وحين وين شقيسك الرا وين سوق لنا تلقوا وين كلية فيه من قفسك الرا وين ذلك الرا لا الباقي من ركبون وحين وين قفصني معيشتي من السرين وقالي تعليمتي من السرين وقالي يعني ماها من الوقات والصومال اللي معها كنت نقعمها يستقصنوا وإن فكرتها يسوقينوا أي إنه وحين قبصن دورنا وإنه